halkan waa hoyga uu ka degan yahay Aabbo Qaasim Cusmaan deegaanka Weedow ee duleedka magaalada Muqdisho. Qaasim Cusmaan waxa uu in muddo ah ku xanuunsanaya gurigan aad arkaysaan. caruur fara badan oo dhalana waa ay joogaan. caruurtiisa ayuu xamaalan jiray balse iminka waa dhulyaal. caruurtiisana waa kuwa markaasi dugsiga iyo iskuulada ay dhiganayeen markaasi kaga soo aruuray inay gurigooda ay joogaan. hooyada dhashay ayaa waxay noo sheegtay in ay la dhiban tahay lana dalaadhacayso korinta caruurteeda. waxa ay bulshada Soomaaliyeed ka dalbanaysaa in markaasi Aabbo Qaasim Cusmaan loo soo gargaaro sidoo caafimaad u heli lahaa. dhanka kale waxa ay sheegtay in Qaasim Cusmaan in muddo ahba uu yahay ninka aad arkaysaan ee xanuunsan sida ay noo sheegtay welina uusan helin gargaar bini'aadanimo. waxa ay fariimo kala duwan u direen dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale taasi oo caruurta qaarkood ay codsanayaan in aabbahooda la gacan qabto si daawo u helo. dhanka kalena ayagana ay daryeel u helaan. Qaasim Cusmaan alayraada ma qasana xanuunsanta wallahi muddo xanuunsan muddo waxaan soo tilkoogan xanuunkaaga muxuu ku bilowday xanuunkayga nabarayaro ku bilowday nabaray waa isfidiya nabaray waa lugta waa weynaatay korka meel iyo madaxda isku socota maasha waa isku socota xanuun aw imaan korka jirka intuu gadoo isoo gargaarooda malaha waa dhibanaha walaalayaalo ummadda oo madaxda sharafta leh waxaan ka codsanaa sida ugu dhaqsiga badan leh ay isoo gargaaraan. wax ku imaaday oo caafimaadkaaga kula dadaalay ilaa maaragtay ma arkan doctorna waa iskaas xanuun isu joogta korka way uraa korka way xanuuna doctor korma loo qaadi karo xanuun baabi'i iyo waxyaabo kaalmaad aad heshay ma jiraan waa sidaas leh. Aabbo Qaasim Cusmaan sidoo kale waxaa dhinaca jiifta Saare Cusmaan oo walaashiisa ayadana waxay la ildaran tahay xanuun rabaani ah balse qoyskan xaqiiqatan waxa ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. waxa ayna gargaar ugu baahan yihiin Ilaahay ka sokow bulshadeenta Soomaaliyeed dal iyo dibadba ha joogto qaasatan madaxda dalka Soomaaliya gaar ahaan waxa ay fariin u direen gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiye Madaale. gurigan xaqiiqatan markaad soo gasho indhahaagu waxay qabanayaan murugo iyo calooliyow balse ummadda Soomaaliyeed ee na daawanaysa waxa ay ka codsanayaan bulshadan iyo dadkan Soomaaliyeed sida ugu dhaqsiyaha badan in gargaar la soo gaaro. Cabdullaahi Yare deegaanka Garasbaaley duleedka magaalada Muqdisho. Fogeysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka midowga Yurub, UK, Canada, Australia ama New Zealand xawaalada World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diro Premier Wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo. ka faa'iidayso fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadka aad jeceshahay Premier Wallet.